waxaan idinku ballan qaadayaa inaan wasaaradda macdanta inta joogo waxaa la yidhahdaa wixii aan kari karay wanaaga ee waajibkayga ama fiqiiba ha ahaato ama Soomaaliland kalaba ahaatee inaan guto. wixii qarniyo iska yaalay ee khayraad in laynoo soo saaro inuu dhammaanteen wada faa'iidno hadday tahay shacbiga deegaanka iyo hadday tahay gobolka iyo hadday tahay qarankaba inaan dhammaanteen ka wada faa'iidno. waxaan horta bilownay inaanu raadino xogihii hore ee waddanka hore looga qoray tarjumaad aanu samayno kadibna remote sensing-kii muxuu ahaayey satellite-kii macluumaadka laga qaadanayay kiina la duldhigayay la eegayay meeshan u socnaa ma tahay meel suuragal tahay in wax laga helo. dal wuxuu horumar ku gaadhaa khayraadkiisa dabiiciga ah marka waynu sheegi karnaa dalkeenna waynu ku faani karnaa la soo bixi karnaa garan karnaa waxaan haysanaa waxay yihiin marka aad bay farxad noogu tahay inay wasaaraddeenu fulinayso oo aanay gacan kale aanay noo fulinayn waa xooggan leenahay iyo tacab leenahay iyo cashuurtii dadweynaha lagu qabtay oo lagu adeegayo weyn. wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa kormeeray mashaariicda macdan qodista ka socota deegaanka Fiqaayub waxaana sidoo kale ay wafdigani kulan la qaateen dadweynaha deegaanka Fiqaayub. aad u salaamaya kashka iyo qalbigaba ka salaamaya dadweynaha igu soo dhaweeya halkan waayeelkiisa madax dhaqameedkiisa dhalinyartiisa dumarkiisa cid walba ay soo dhaweysaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan Fiqaayub ku arko dumarkaa sharafta leh dhalinyartaa sharafta leh ee ka muuqdo islaamnimadu. waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ifsan iyo aakhirada ma siiyo wanaaggaana ay sii wadaan. waxaana ay tusaysaa inay igu dhiiranayaan ay igu leeyihiin xilka lagu igmaday ee aad u haysa Fiqaayub iyo Somalilandba si u gudo waajiba oo daacada marintaan bay farayaan. waxaan idinku ballan qaadayaa inaan wasaaradda macdanta inta joogo waxaa la yidhahdaa wixii aan kari karay wanaaga ee waajibkayga ama fiqiiba ha ahaato ama Soomaaliland kalaba ahaatee inaan guto. waxaan u diyaarahay mar labaad wasaaraddaydi inay waxa khuseeya macdanta iyo wixii kale khuseeya dawladaba hadday tahay iskuullo hadday tahay caafimaad inay idinkala shaqayso Fiqaayub ay wax aliyaa waxaan u qaban kara baan u qabto. idinkana waxaan idinka badhayaa in amniga la shaqaysaan shirkadaha la shaqaysaan dawladdana la shaqaysaan. halkani waa deegaanka dahabka laga qodayo Cirshiida oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana safar shaqo ku maraya wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta oo kormeeray goobaha shaqadu ka socoto waxaana ay sidoo kale wafdigani la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Cirshiida. muddo 4 cisho ayaynu ku sugnayn eeriyadan inaanu safar soo ahayn iyo inaanu joognayba alxamdulillah waa khilaaf yar oo dhex yimid shirkadda iyo dadka deegaanka adduun la Cirshiida intiina turxaan bixintii naga dhamaatay alxamdulillah rabbil caalamiin maantana gacmaha muhiimka wada haysanaa hal tiimna waynu nahay adduun la yiraahdo shirkadda xidid madow ee maanta ka shaqeynaysa waxaynu rajaynaynaa guul waxa weeyaan waxaynu rajaynaynaa wixii qarniyo iska yaalay ee khayraad in laynoo soo saaro inuu dhammaanteen wada faa'iidno hadday tahay shacbiga deegaanka iyo hadday tahay gobolka iyo hadday tahay qarankaba inaan dhammaanteen ka wada faa'iidno. community diplomatkii waxa weeyaan shirkadda waxay samayn doontaa MCH-kii insha Allah sida ugu dhaqsaha badan sida barasabku sheegay iyo gaadhigiiba waa diyaar. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida khayraadka ee xildhibaanada golaha wakiilada Mubaarak Muuse Ismaaciil iyo xildhibaan Cambe. waxa ballan nooga inaan runtii korjoogteen u noqono hawsha ay shirkaddu wado iyo ballanqaadka dawladdu ay ku ballanqaaday. waxa maanta halkan aan u joognaa inay gacmaha is haystaan deegaanka shirkadda iyo xukuumadda
sidoo kale waayeelka deegaanka ayaa iyaguna dhankooda halkaasi ka sheegay inay dowladda iyo shirkadda macdanta ee Xidid Madooba hadda laga bilaabo ay la shaqaynayaan wixii horumarana ay soo dhaweynayaan. maanta waxaa alxamdulillaah in cabashadii deegaanka iyo shirkadda la dhameeyay wixii gudaha yagaanu ka dhamaynaynaa waxaan halka caddaynaa inaanu qaadanay horumarkana waa soo dhawaynaynaa go'aankana waa wada qaadanay horumarkana waa soo dhawaynaynaa dawladda iyo shirkaddana waanu la shaqaynaynaa. dhanka kale wasaaradda tamarta iyo macdanta waxay gobolka saaxil ka wadaa mashaariicda sahminta iyo baadhista macdanta deegaanada buuraleyda ee gobolka saaxil. qaybtii koobaad mashruuca bilowgiisii weeyaan insha Allah wuxuu daaran yahay kan aynu maanta u joognaa gobolka saaxil kaliya laba goobood oo kamid ah meel waa qaybtan Hudiso ilaa iyo Geedlookor meelna waa Bahalale weeyaan qaybta Hudiso ilaa iyo Geedlookor inta ka soo sokaysa waa 290 kilomitir square halka meesha kalena ay ka tahay 30 kilomitir square marka waxaanu sameynay sidii caadiga ahayd waxaan horta bilownay inaanu raadino xogihii hore waddanka hore looga qoray ku samayno geological mapskii hore la sameeyay aanu interpretation ama muxuu ahaayay tarjumaad aanu u samayno kadibna remote sensingkii muxuu ahaayay satellite-kii macluumaadka laga qaadanayay kiina la duldhigayay la eegayay meeshan u soconaa ma tahay meel suuragal tahay in wax laga helo kadibna ay tiimku halkan yimaadaan.